nin adduunyo joogow maxaa aragti ku laaban reer xamurkuna waa halkay ka yiraahdaan cumrigaaga hadii israago geel dhalaay asku tusina bareela daawada waxa aniga iga yaabi idinkuna aan hubo inaad hore uga yaabteen kadib markay soo gaareen muuqaal xiga oo laga soo duuban ninkan iyo xirtiisa waxaan go'aansaday bal inaan xog dheeriya ka helo fanaankan heesa kala dambi badan ee caruurta ku yiri ku heesa ayadihii quraanka alle iyo hablihii niikinay rabbigooda amaanay nasri iyo nimco weynba ee bahay ku manayst subhanallah war muxuu yiri haddaba ninkani magaciisa waa Cabdiweli Cali Cilmi waxaana jirta magacyo badan oo la baxay oo kamid yahay weligii alle wuxuuna ku nool yahay koonfurta magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ninkan ayaa deegaanadaasi ka wada falalidii kuwa diinteena suuban islaamka isagoo halkaasi ka dhistay guri weyn oo ku sheegay inuu yahay Baytul Rasuul kor intuu san bilaabin dhismaha gurigan wuxuu dadkii deegaanka u sheegay inuu dhisayo wuxuu ku sheegay gurigii rasuulka sida darteedna loo baahan yahay in qof walba ka qayb qaato dhisida gurigaasi hadii kale ay ku noqon doonto waajib diini oo gabay dadka Soomaaliyeed xaaladda ninkani waxay ka war heleen mar aan sida u sii fogeen oo soo bandhigay sawir uu ku sheegay inuu yahay nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee haddaba waa kuma ninkani waxa inooga waramaya wadaad si fiican u garanaya fidnada ninkan oo dhulkaasi ka waday sanado badan arrinka maanta dhacay oo maalmahan socda ma uunan soo bilaaban hadda kufriyaadka ninkani uu la yimid waxay soo socdeen dhowr sano mana aha nabigu caayay nabi maxamed kaliya ma aha horayba wuxuu ugu soo tuntay oo wax ka qabtan la waayay nabiyullaahi muusa muhaadara uu jeedinayo duubay oo leeyahay waa cilmu daahir iyo cilmu baatin anu waxaan aaminsan oo aqaana cilmu baatinka ayaana xeel dheer asagaana macnaha qofka fahmay uu dhuuxay waxa weeye oo san daahir u baahnay sidoo u soo wadaybu wuxuu yiri tusaalahan idin siinaya waxa weeye Khadir alayhi salaam wuxuu aaminsanaa oo ku socda cilmu baatin nabiyullaahi muusana wuxuu aaminsanaa cilmu daahir labadoodina way doodeen markaas nabi muuse ceeboobay bihada lafdi ayuu oranay nabi muuse ayaa ceeboobay markaas uu soo celiyo wuxuu leeyahay illa cilmu daahir oo qiimo malihi nabi muuse ku ceeboobay ilaa ayuu leeyahay dhowr sano ka hor ayuu oranay kama soo bilaabin kufrigaas sabbiga maanta nabiga uu geysanayo iyo kana rasuula wuxuu caan ku yahay meesha uu joogo oo goobta uu degan yahay wuxuu ku magacaabay markuu dhisayay Baytul Rasuul baytii rasuulkaan dhisaya markaas dad cawaam ah oo nabi maxamed ba aan bayd inuu leeyahay u salahayn ba adduunka waxba ogeyn ayaa yiri Baytul Rasuul aan ka qayb qaadano markaas waxa loogu deeqay dhagaxa dajintiisa lacagta la bixinayo shaqaalaha shaqeynaya fundiyaalka ayaa loogu deeqay xarun ayuu dhistay markaas wuxuu ku magacaabay Baytul Rasuul nasra iyo durbaan buu ka bilaabay makarafoonna waaweyn buu ku xirtay xaafadihii dariska ah dadkii deganaa waa ka guureen habeenkaas oo dhan buu ku dhawaaqay jaadka u yimaada oo Nairobi uga yimaada waa firi qaybta jaadka u soo baxda asaga loo soo qaado dadka yaqaana waxay noo sheegeen in loogu soo qoro siyaaradii Sheekh Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi yare ayaa loogu soo qoraa markaas diyaaradda marka laga soo dejiyo jawaanadiisa gooni baa loo dhigaa asaga loo geeyo salaada waagu diidi jiray ma dhaweyn ma tukado macruuf weeye kuwii la joogay oo ayagu iskood u tukanahayay oo markii dambe iska daayay baan weydiinay markaas ilaahay sheekheena iska daayay maxaa yeelay wuxuu ilaa aniga nabiga ii tukada idinkana ana idin tukada iska daayay yaqiintii baan gaaray ma tukado waa salaad la'aan waa fuxshi iyo daroogo waa ginaagaas iyo muusiga la tumaayo وصب الأنبياء الله عينيه وأركتين آياتها القرآن كمركو كوهيسة هيو انتو صوكا حيث كوحدا أو فريقا إنو كوهيسة هي آياته القرآن كا ومركو مرها يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا إن الدنكنا هي صور كايسة واركت تراعوا كهير كاس جاري إيا كفر كهير يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا على محمد
dhammaadkii sanadkii 2016 oo ahayd markii sharta ninkani dadku ka war heleen oo uu soo bandhigay sawir ku sheegay inuu yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam ay maxkamadda maamulka Galmudug amartay in la soo xiro maxkamadana la horgeeyo waqti badan ba kuma sii jirna xabsiga hore laga sii daayay waxayna maxkamadda maamulkaasi sheegtay inuusan wax dambiya lahayn waxyaalaha hadda wadanka lala marmarayo akhyaaray waxa fiican qofku haduu yimaado halka markii maxkamadii fiirisay iyo su'aalaad kale ay sii weydiisay ninkaas xukunka ay ka gaartay maxkamaddu way gaartay ka sheekha firiibay ka dhigtay culamadii meesha joogtana sidii bay iyaguna xukunka ugu raacay haddaad hore u ogeedeen nin qof dilay oo reerkiisa qabiilnimo ku difaacay hadda sheekadu halka waa ka sii durugtay waxay maraysaa nin nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo diintii alle ka been abuurtay falalkan aragtaan ee ka baxsan diinta islaamkana fidinaya in qabiilnimo iyo waatulkayga lagu difaaco intaan barnaamijkan iyo xogta ninkan raadinayay waxaan la xiriiray dad la igu sheegay inay qaraabo yihiin oo ku nool halka uu joogo waxaase ka helay jawaabo aad igaga fajiciyo oo runtii igu abuuray murugo aadna igu iftiimiyay heerka qabyaaladda Soomaalidu maanta gaadhay waxyaabaha cajiibka ee ninkaasi laga hayo waxa kamid ah inuu yiri haddaadan carabka gacmaha iyo lugaha aadan isku si u dhaqaajin markaad alla caabudayso cibaadadaada ansax maaha oo uu la jeedo marka la xusayo alle waa in raguna ay suuxaan oo ay dhaanteeyaan habluhuna ay niikiyaan marka saaka la jecel ay ka qabatay hadda saddex juzba oo carabkii iyo gacnihii iyo saddexdii iyo lugihiiba kulligii marka qof wuxuu isku tagayaa أجزاء صار من نقطة معناها ذاكر ساسانا معناها آيات شيء ومأمورة كو تسوى قريب معناها وسيدنا هذا ساكا أنا مرضى بصدق عربك يقعناها يلوها قفان اسكسي ذاكر واهن حتى ما هم ها لما بهنا وحسبه هذا اللوي ساس ترى وقعني ساس ترى عرب كلها ترى أو آيات ما لك بينس أنت كلام ما بينس عربنا فرمس لما ربطت سيدان ساك أتاجتين باني درجة كتاجت بالحد يا حسبي وكاشفا كركي في الحال والحسبي بسم الله يا مصطفى بالله يا رسول الله اتولدني ma aha halkani wax lagu soo koobi karo fidnada oo ninkaasi deegaanadaasi ka wado waxaase nasiib darro ah in maanta dadku uu duufsaday ee xirtiisa ku biiray ay boqolaal karo dhaafayaan waxaana u badan caruur yar yar oo kuwa heesaha u dhiibo iyo haweenka intaan xogta ninkani raadinaya waxaan sidoo kale soo ogaaday in toddobaadkiiba ugu yaraan 2 maalin ay dumarku ugu niikiyaan guri weyn oo ka dhistay halkaasi wuxuuna ku dhahaa bal maanta waa caajisanahay bal iga farxiya sidoo kale wuxuu aaminsan yahay in dalka oo dhan uu mas'uul ka yahay oo aysan jirin cid ka sarreysa waxaan ilaahay ugu sheegayaa caanaha gabdhaha ku soo diyaar garoobay Allah ya baxriyo hadda caawa la farxisaan oo hadii ilaahay ku orto wadanka anaka mas'uul هيا نعم اضوح صحيح كتو إلهي صحيح ولا هي وأنا هم تو كم شو سواني ولا شو هذا كبعد من سواني نعم بالله مركو واحد دي شيء هي هذا عاوي تاي حسان نسعد سنة واحدة بطلع أنا وتلك يا جعمها يا لغها يا قوم نقص عياتان واسترسال أول إنسان والله بوكس عنها بوك والسلام قبليني كاين نبي قضى أماني نصري النعمة وين بها بيكم من يستعين waxaa sidoo kale ogaaday inuu leeyahay koox dhameystiran oo faneed oo ciyaal u badan waxaana ka marnayn musishinkii haysta u tumi lahaa iyo kaamirmahano ka duuba dhalinta da'da yar ee ku hareereysan oo wadadii saxneed ka weeciyay markuu hadlayo waxay yiraahdaan nacam waan arin kale oo iga yaabisay نعم بسم الله نبا إسرائيل صار من الله مصدره نبا فراي وروي صح القرآن بكم هو الريم يا أنت يا مرة حدك بعدي محاضرات أما متى حد حق لنا أما القرآن كل إنسان قبلنا نعم ووري هولو إنك خير الله شيء ما إسرائيل آمين القرآن كله صار واحد سؤال واحد سؤال
haddaba bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada uu ninkaasi ku nool yahay waxaa waajib ku ah inay iska qabtaan dajaalkani ka been abuuranaya diinta nusuuban oo ay ka hortagaan fidnada uu dhulkooda ka wado. haddii aysan taasi dhicin waxaa suurtagal ah in dadka maatida aan diinta aqoonta u lahayn inay ku sirmaan oo ay aaminaan kitaabkan qaldan ee uu ninkaasi akhriyo. waxaan sidoo kale halkani dhaleecin uga jeedinaya culimada Soomaaliyeed oo aad uga gaabiyay doorkii weyn oo ay arrinkani ku lahaayeen. ugu dambeyntii muuqaalkani sii qaybiya hana laga digtoonaado sharta uu ninkaasi wado. waa saaxiibkii Cabdishaaq Gumaysi Diidoodile dalkeena cadow ka xorooba nabadgelyo.